السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waxaan rabaa inaan kaga warbixiyo booqashada madaxweynaha oo ku jooga wadanka Mareykanka. madaxweynaha wuxuu yimid magaalada New York 22 bishii September 2025 halkaas oo kulamo muhiim ah oo kula yeeshay wufuud iyo madax kala duwan oo laga wada hadlay arrimo hortaban oo leh dawladda iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dawladahaas iyo hay'adahaas kala duwan oo madaxweynaha la kulmay. saas oo kale madaxweynuhu wuxuu khudbad ka jeediyay kulanka guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa halkaas oo uu uga warbixiyay xaaladaha dalka gobolka iyo adduunkaba. sidoo kale madaxweynuhu wuxuu joogaa magaalada Washington halkaas oo uu kula kulmay mas'uuliyiin sarsare ee ka tirsan maamulka madaxweyne Trump. sidoo kale wuxuu soo booqday safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya halkaas oo kula kulmay howlwadeennada kala duwan ee safaaradda oo warbixin ka siiyeen shaqada ay u hayaan qaranka. waxaan rajaynaynaa madaxweynaha wafdigiisana inay dhawaan ku laaban doonaan xamar.